aad u danaynaysa arrimaha Soomaaliya looga wada shaqeyn lahaa departmentyada la kulanay waxaa kamid ahayd immigrationka runtii hoos timaada wasaaradda cadaaladda waddankan hoos timaada waxaana jira waxyaabo fara badan oo dadka rumors ah oo meelaha laga sheegay balse annagu inaan dadka Soomaaliyeed oo ama gudaha jooga ama qurbaha jooga inaan saacidna maahane marna tala ah maana qaadan in la yiraahdo dadkii tala aruuriyo meelaha la isaga daadiyo waxyaabaha waliba aan uga dignay waxaa kamid ahaa dalkan uga dignay immigrationkooda inaysan ku degdeginin in dad Soomaaliyeed inta la aruuriyo la isaga daadiyo meelo kala duwan oo Soomaaliya kamid ah oo ay suurtagal noqon karto dadkaas inay dhibaato soo gaarto ama lagu dilo si hadda ka horba dhacdayba waxa weeye maxaa la yiraahdaa mar walba waxaa anagu aan nahay oo aan metelnaa shacabka Soomaaliyeed ama ha joogaan dibadda ama ha joogaan dalka gudihiisa waxyaabaan kala hadalna waxaa kamid ahaa dhalinyaro dadka Soomaalida ah oo carruurtooda la iska qaadanayo oo mar kastaba iyadoo aan si sharci loo soo marinin laga qaadanayo carruurtii qoysaska laga qaadanayo oo la geynayo ciido kaleeto iyo meelo kaleeto iyadoo marna aan la tixgelinin culture-kii Soomaalida iyo dhaqankii iyo diintii midna saacada wasiir waxaa jirta mararka qaarkood dadweynuhu hadda saa dhawaajisaba isla dhexmarayeen inaad sameeynaysa immigrationku inuu dadka celiyo iyo waxyaalahaas magaalada Oslo inta badan dadka isla dhexmarayeen taasi waxaad leedahay sama waxba kama jiraan sirn aanti waxa weeye arrintaas meel ka timaado ma aqaano waxyaabaha aan ka hadlayna waxaa kamid ahayd in dadka halkan jooga oo dhibaatada ku haysato oo la leeyahay ladima cadeyn karin Soomaali tiin in kaleeto inay dawladda Norway ogolaatay in anagu cadeyn inay Soomaali yihiin oo aanay dhibaato loo geysan balse haba yaraatee ma jirto sida loo fasiray inaan anagu aan barnaamij wadana ah dadka la celiyo arrintaas waa arrin aad meel ay ka socotaan aan aqoonin bal anaga waxaan ka wada hadlaynay in immigrationada wada shaqeeyaan oo la xoojiyo amniga dalka laga wada shaqeeyo oo Norway naga caawiso sidii immigrationkii hore u maray lahaa balse ma ku jirto haba yaraatee qorshahayaga dad Soomaali dib loo celinayo horeyna uma dhicinin haddana ma jirto kuwa badan oo la soo celiyay oo la keenay oo dib loo soo celiyay waa jiraan waan ugu soo celinay dib ugu soo celinay wadamo kale laakiin barnaamijkaas waxaan u maleynayaa inaysan ahayn barnaamij haba yaraatee